الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meel walbo aad dunida ka joogtaan, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, hadba xilliga ay ku tahay ku soo dhawow Goosaar Graphics iyo muuqaal cusub. Muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa sidee loo bedelaa qaab dhismeedka tinta ama waxa loo yaqaano hairstyle-ka in Photoshop. Waxaan muuqaalkan kugu sharxi doonaa hab ama qaab aad ku xalin karto haddii uu sawirkaaga ka qaldan yahay tinta ama aysan ka qurxoonayn. Saad u daawato muuqaalkan iyo muuqaalo kale oo xiiso badan, fadlan channelkan subscribe saar, gambaleelka furo saad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaalada aan soo gelino bartan. Sidoo kale la wadaag saaxiibadaada, like-na saar muuqaalkan haddii uu ku caawiyay. Waa anigoo Yaxya Cabbaas Ibraahim ah, muuqaalkoo dhammaystiran la socod wanaagsan. dhammaan saaxiibada ku xiran channelkan Goosaar Graphics, dhammaantiin waxaan idinku mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad ula socotaan xilli walba muuqaalada aan soo gelino bartaan Goosaar Graphics, iyo sida wanaagsan aad inoogu muujisaan dhiirigelinta iyo garab istaagga. waad ku mahadsantihiin mar kale. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, hadda subscribe garee oo gambaleelka furo saad u noqotid qofka ugu horeeya hela muuqaalada aan soo gelino bartan YouTube-ka. insha Allah tacaala muuqaalkan waxaad ku daawan doontaa sida qof tin loogu abuuro ama sida qof aan tintiisa habeysnayn tintiisa sida loogu habeeyo. muuqaalkan haddii aad daawatid oo dhamaysatid waxaad xal u heli doontaa haddii uu sawirkaaga ka qaldan yahay dhanka tinta ama aysan ka qurxoonayn in aad wax badan ka qurxiso ama wax badan ka bedesho. sidaas darteed la socod wanaagsan. ma rabo inaan ku dheeraado sawirradaan isticmaalayo shakhsiyaadkaas qofka yihiin. sidaas darteed waxaan rabaa inaan idinla wadaago muuqaalkan oo dhammaystiran la socod wanaagsan. waxaan isticmaalaynaa sawirka koowaad aan rabno inaan ku shaqeyno kan waaye. waxaan rabnaa calinkan inaan u abuurno tin si markaa aan fiirino marka uu tin leeyahay marka aan tinta u abuurno farqiga u dhexeeya ama sida uu muuqaalkiisa noqonayo inaan ogaano. okay, control A aan leedahay, control X. waxaan rabnaa inaan soo jarano. waxaad imaanaysaa backgroundka workplace-ka ku shaqeynaysid, waxaa leedahay control V. waxaa iskula qabanaysaa shift iyo alt, kadib muuskaas oo aad kusoo daraagareynay. okay, marka meeshaan aad taagan tahay waxaan rabnaa inaan qaadano sawirkan labaad, qofka tintiisa rabnaa inaan qaadano. okay, marka meeshaan taagan tahay waxaa soo dooranaysaa loose tool-kan oo loo yaqaano loose tool oo ah mid ka mid ah waxyaalaha lagu jaro sawirka ama waxyaalaha aad rabtid inaad jartid waxyaalaha lagu jirto. marka meeshaan aad taagan tahay control T aad leedahay, kadib waxaa leedahay wab cafan control T markaa dhahdid right click aa ku leedahay muuska, kadib waxaa leedahay wab. waxaan rabnaa inaan wejiga qaybta saxsan inaan ka doorano sawirka. okay, capacity-ga waa iska soo yareysanaysaa saad u aragtid sawirka meesha iska lahaan karaan.
okay calaamadaas aad dooranaysaa marka hadda capacity waa iska soo badsane markaana meesha aad taagan tahay waxaad u tagaysaa iconkan yar oo aad ku abuurayso ama aad ku dooranayso selectionkan aad tagaysaa selectivekan aad tagaysaa dooranaysaa marka meesha aad taagan tahay waxaad u tagaysaa adjustment layer adjustment effectkan aad u tagaysaa waa soo dooranaysaa arrowgan yar ku soo doormaayo marka meesha aad taagan tahay waxaa ku apply garaynaysaa color-radan guduudka dooranaysaa okay waxyar wajiga madow ku dare okay waxaad dooranaysaa yellowgan aad dooranaysaa okay hadda waxay imaanaysaa madowga dooranaysaa oo tinta colorka dhiganaysaa okay marka meesha taagan tahay waxaad dul imaanaysaa sheeg iconkan oo okay markaana inta taagan tahay waxaa leedahay zoomas oo leedahay generalkan aad dooranaysaa hadba midka aad dooratid colorkiisa ku qaadana midkan blue aad durtagaysaa kana aad dooranaysaa waa soo highlight gareyn waa soo drag gareyn waxaa ku dul copyeen new layer hadda waxaa ku sameysmay new layer ku sameysmay oo aad ka soo copy gareysay blue-gi marka meeshan aad taagan tahay waxaa imaanaysaa image waxaad ka soo dooranaysaa sheeg levelkan aad ka dooranaysaa okay iska soo leedahay brushkan aad dooranaysaa hadda markaan waxaan rabnaa in wejiga aan ka doorano positionkiisa saxda sidoo kale backgroundkan aan bedelno marka la socod wanaagsan meesha markaa taagan tahay backgroundkaaga waxaa ka dhiganaysaa madow okay waxaan rabnaa tinta inaan xoogaa okay adiga ilaa waxa meesha is leedahay tinta way ku yar tahay aan madoobeynaysaa okay marka meeshaan taagan tahay inta sana usoo ka heligaysatid waxaad tagtagaysaa flartan waxaad dooranaysaa backgroundka white-ka waxaan rabnaa waxyaalaha qaarna iska jarno oo aadan u baahnayn marka isla brushka adoo isticmaalayo okay okay marka meeshaan taagan tahay backgroundka iyo waxyaalahadan u baahnayn iska tiraysaa okay
markaa meeshaan aad taagan tahay waxaa sameynaysaa control I ayaad leedahay. control I markaa dhahdid waxaa qabanaysaa control, waxaad turtagaysaa backgroundki layerkaa soo koobiyeysatay ayaad turtagaysaa oo ku shaqeynaysa keligaa ku leedahay. wuu ku doormayaa intaad kusoo shaqeysay. then waxaad dooranaysaa RGB ga dooranaysaa, waxaa kasii dooranaysaa layerska. marka layerska aad dooratid waxaad turtagaysaa layer maska kusoo shaqeysay. waxaa leedahay delete. marka delete dhahdid waxaad dooranaysaa layer maska kale. layer maska kale aad dooratid waxaad turtagaysaa layerkan aad kusoo shaqeynaysay ayaad iska soo xiraysaa. kadib waxaad leedahay yes. okay, hadda saa umaleynayo isbedel wuu jiraa. marka meesha aad taagan tihiin waxaa sameynaysaan layerkan aad dooranaysaa, midka haddaad noo dooran yahay dooranaysaa. then waxaa ka dooranaysaa filter. okay, filter aad dooranaysaa, waxaa leedahay liquify. marka waxaa saxanaysaa tinta positionka ay ku taalo. saa u saxatid waxaad tagaysaa meesha on layerska, waxaa ka dhiganaysaa background. wuxuu ku ahaanayaa in 40 laakiin waxaa ka dhiganaysaa behind. okay, then waxaa soo yareynaysaa capacity-ga si aad u aragtid tinta positionka ay ku taalo. okay, tinta positionka ay ku taalo si aad u aragtid. okay, waa iska soo xiraysaa. okay, markaa meesha taagan tahay waxaa iska soo xiraysaa arrowgan. okay, waxaad dooranaysaa layer mask. markaad dooratid waxaad tagaysaa brushkan, waxaad dooranaysaa backgroundka madow ka dhiganaysaa. zoom soo dheh. marka
waxyar waxaa ku laabanaysaa lig wifi alehe zoom soo dheh hagaa inta qaybtan soo bidinaynaa hal mar bilaabo soo dooro suma soo leedahay waxaad dooranaysaa layer background ka doorane waxaad dooranaysaa marka meeshaan aad taagan tahay waxaa sameynaysa marka meeshaan aad taagan tahay waxaad tagaysaa layerkan tag waxaad leedahay aad dooranaysaa curveska dooranaysaa saaxiibada gabagabadii aan joognaa sawirka hadda isbedelkiisa xoogaa isbedelkiisa xoogaa hadda inoo muuqda markaa waxaa sameynaysaa mar labaad waxaad dooranaysaa graftigan dooranaysaa curves dooranaysaa marka meeshaan taagan tahay waxaad dooranaysaa sulkan haddana waxaad dooranaysaa filterka blur aa leedahay waxaa kasii dooranaysaa goshan blur
aad baad mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waan kaaga mahadcelinaynaa sidaad ugu xiran tahay channelkan Gosar Graphics. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka hadda subscribe garee oo kambalka furo si aad u noqotid qofka ugu horeeya hela muuqaalada aan soo gelino bartan YouTube-ka. sidoo kale la wadaag saaxiibadaada jecel inay ka faa'iideystaan muuqaalada noocan oo kale ah. waxaan idinkaga tegaynaa kulanti dambe oo xiiso leh iyo maalinta midowga labada gobol ee Soomaaliya waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya. waxaan leeyahay Soomaali ha noolaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.